wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya xildhibaan Cabdicasiis Xasan Maxamed oo loo yaqaan lafta gareen ayaa iska casilay xilkiisa isagoona ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaan Cabdicasiis lafta gareen ayaa noqday wasiirkii ugu horeeyay ee isu casila tartanka loogu jiro gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. lafta gareen ayaa sheegay inuu go'aansaday inuu iska casilo xilka wasiirnimo maadaama uu yahay musharax u taagan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. waa kan isagoo la hadlay saxaafadda. anigoo ah Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen kana mid ah xubnaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna musharax u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka haddii alla idmo. ugu horeyn waxaan halkan ugu mahadcelinayaa xildhibaanadii igula taliyay fikirka ah inaan isu soo sharaxo xilka gudoomiyaha golaha shacabka iyo mudanayaalkii kale ee xildhibaanada igu taageeray iguna dhiirigeliyay fikirka iyo tala soo jeedinta xildhibaanadii hore in aan ku sii dhiirado xil qabashada gudoomiyaha golaha shacabka. kadib markaan darsay kana baaraan degay tala soo jeedinta saaxiibadayda igula jira golaha iyo dhiirigelintooda ku aadan qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka, waxaan go'aansaday in aan isku soo sharaxo xilka gudoomiyaha golaha shacabka oo uu tiradiisa guud tahay 276 xildhibaan. sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo go'aanadii ay soo saareen guddiga doorashooyinka gudoomiyaha golaha shacabka siday u dhan yihiin waa aqbalay. waxaana ka mid ahaa go'aanadii ay soo saareen ninka musharaxa gudoomiyaha golaha shacabka noqonayo waa inuusan xilka kale uu hayo uu iska casilaa. sidaa daraaddeed laga bilaabo maanta waxaan iska casilay xilkii wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sidii ay sheegeen go'aankii ahaa guddiga doorashooyinka. waa mas'uulkii ugu horeeyay ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya ee iska casilay xilkiisa isagoo isku soo sharxay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, wasiirka biyaha Saalim Caliyo Ibro iyo wasiirka ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Ibraahim Isaaq Yarow ayaa ka mid ah xubnaha wasiirada ee isku soo sharxay xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya walow aysan sheegin inay iska casileen xilkooda. guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ka dalbaday xubnaha wasiirada ee haya xilalka inay keenaan caddeyn ku aadan warqadda iscasilaadooda marka ay isdiiwaan gelinayaan. Axmed Suleymaan, Honkeyl TV, Muqdisho.